hoos ayuu dhacday dollarka. waxaa la oranaya hadda isbuucan oo kale waxaa hadlaya Biden iyo ninkii odayga hadli jiray waa hadlaya baa layidhi marka siba lacagta dollarku giraan dib usoo noqoto. marka isbuucan waxaa moodaa inuu haddana bilow u yahay inuu still suuqu doonayo inuu gaaro maybe meelahan oo kale inuu areada gaaro una gaari karayaa macquul inuu aduu 19 meelaha gaaro possible waa haddii aysan lacagta dahabka awoodeeda aysan totaliba wiiqmin oo yaraan markaan calaamadsanno meelahayni taswiish waa meelahayni calaamadsanno. marka maadaama hadda isbuucii dhaweyd ay ahayd wax unexpected ah in يعني lacag intaa soo socotay lacag intaasoo dhan isbuuci dhan soo socotay in isbuuci dhaweydna still momentumkii buyga ahaa ay sii wadatay. marka at least waxaa la oranaya halkan ayay waxa loo yaqaano imaanaysaa marka ama halkaas ayuu candleka ku xirmayaa waana waxa inta badan aan saadaalinaynay laakiin ma dhicin oo candleka banaanka ayuu joogaa saarkaysa. marka there is a possibility inuu aduu 19 meelaha la tagayo 1900 in laga tagayo meesha marka lagama saari karayo. laakiin sidoo kale waxaan meesha laga saari karaynin in uu candlekan isbuuca uu samaysan doono retest kaasoo iman doona 1850 in momentumka ama awoodda uu ku dhaqaaqayo aysan meesha ka bixin yani inuu sidaasoo kala sameeyo inuu 18 yimaado kadibna inuu momentumka ama awoodda uu kusii socon lahaa oo meeshaasoo kale ku gaaro. marka halkan waa sababtan signalka qaadanay oo aan ka rajeynayna marka inuu ilaayo at least 6 uu gaarayo ama 50 uu taabanayo laakiin weli waxaa moodaa inuu joogo meel yacni equilibrium ama awooddeeda aan la dhaafi karaynin. si halkan ka arkaysaanba waa maalintii yani shantii maalin oo suuqa furnaaba waxaa arkaysaan lacagta dollarka ay awooddeeda ay 0 ahayd shantii maalin oo suuqa furnaaba saasuu ku dhamaaday. kan hadda socdana waa meesha ugu badan hadda lacagaha lagu luminayo already hadduu qofka meelahan oo kale ku jiro waxaa laga yaabaa inuu 1878 uu mar yimaado mar inuu 1882 yimaado. qofka hadduu hal signal qaato halkaas signalku wuxuu ku dhamaadaba waxaa la rabaa markaasoo kale inuu fadhiisto oo another interview fiican uu calaamadsado uusan isla markii suuqa gelin isla markiina sababta waxaa suuqu ma dhammaanayo waxa dhammaanaya waa annaga suuqu mar walba siisaas ayuu ahaan doonaa uuna ahaanaya forever. marka inaad interview fiican kale ka raasatid weeye mar kale. marka hadda waxaad arkaysaan in ay tahay meeshan meel very difficult yani hadda isbuucii dhaweedee suuqu xirmayay ayay ahayd possibility inuu sii jirayo oo 18 maybe 00 tago laakiin hadda candleskaas oo dhan ma aha kuwa isla eg maaha si aad arkaysidba hadda kuwa isla eg maaha. haddaba signalkan aan qaadanay sidee baan ku qaadanay waxaan ku qaadanay fundamental ahaan lacagta dollarka awooddeeda dib u helayso iyo suuqa markaa candleka 4 hourka oo markaa si fiican ku xirmay maxayd already ba waxaan calaamadsanayba ama aan aniga calaamadsaday xalayto baa waxay ahaydba inuu 187 maybe 71 meelaha inuu imaanay. marka candleka maadaama uu awooddiisa hamar uu soo dhacay haddana uu dib u noqday marka waxaa jira waxa loo yaqaano sharci ah week fill ama inuu candleka uu dhammaystiri karo candleka ku xiga. taas waxay ahayd qodobka koowaad. qodobka labaadna waxay ahayd fundamentalka oo lacagta dollarka awood yeelanayso
filayaa inuu ahaa 1810 meelahaas oo around 1810 inuu ahaa. marka meeshan oo kale ayadana waxay ahayd aan ka galnay crucial area ama level macquula oo intaan candlekan hadda socda 2 hourka uusan naga saarin. marka maybe qofka suuqan ku jiro kale whatever ay ku dhacdaba inuu survive garoobo ama suuq ku sii jiro ama entry point ka baxo hadii stop losskiisa bananka u yaalo. maadaama anaga stop losskeenu iska xadidan yahayba 50 40 maybe 39 hada kan oo kale 40 meelahaas oo ah already una saar sababtoo ma xamil kareynaba yani hadaan xamil isnaano saahno kala gala waxay noqon kartaa يعني بقلبي stop loss inuu naga saaro baa ka qurux badan boqolkiiba boqol. okay marka what about now marka hadda taa waa lagu kala baxay taahe waa lagu kala baxay hadda maxay marka noqonaysaa qorshe muxuu noqonayaa hadda wuxuu noqonayaa qorshu inuu mar kale suuq mar kale inuu ku noqdo 1890 inuu marka ku noqdo. marka there's no possibility oo hadda meesha aan calaamasaday almost 1900 u dhawaan karaysa oo areadan inuu gaaro waa low possibility because waxaa ka horeysa inuu 1850 uu gaaro oo retest sameeyo waa hadduu momentum ama awood kale sii qaadanayo. marka anaga entrygeena wuxuu noqonayaa meesha entrygeena labaad wuxuu noqonayaa exactly meesha يعني already suuqooba meeshanooba unbalance ahba ama meelaan sinayn ah saa ka arkaysan. marka ina waxa weeye marka la iska ilaalino inaan suuqa areadan ka galno ama dhexda ka galno laba mid un bay noqon inaan 1890 sugno sell entryna waxaan ka geli karnaa mar kale waa afwan isla waxaan kusoo qoray number 1876 oo mar kale aan kasii saar garan karin. marka hadda waxay u eg tahayba inuu mar kale booqanayo 1890 marka exactly meeshaas waxay noqonaysaa another entry ama entrygeena labaad ayaan maanta qaadan doono inoo markaa haysana all that possibility. okay intaas bay noqonaysaa intaan ku shaqeynayno isbuuc oo dhanba. okay entrydaas waardiyeysano ayay noqonaysaa insha allah. يعني still momentumka ama awoodda saan ayadoo ay tahay exactly mar kale meelahan kama soo garan karin يعني almost when candle kan oo kale oo 1890 gaaro bas momentumka ama awoodda volume wax loo yaqaan suuq marka ku jira ay wadaya waxa ugu badan waxa weeye waa buy risk. that means waxa weeye lacagta dollarka still down weeye
weli aad bay u daciif u tahay ama aad bay u hooseysaa marka ma ahan mid lagu degdegi karo in mar kala siisarto ilaa uu 1890 taga maaha inta hadday la fahantay ma wani soo arag waxaan filaya inaan mar kale mahadsantihiin maanta dhaweydaan signalkan qaadanaynay jimcihii bay ahayd waxaan filaya intrigeena wuxuu ahaa jimcihii almost meelahan oo kala macno laakiin intrigeena saxda wuxuu ahaa 1890 waa meesha haddaan mar labaad ka sugayno laakiin waxaan kusoo gaarnay asagoo sii daadanaya marka anaa xoogaa markaa waa mashquulsanaa laakiin waan qaadanay almost hit the TP marka intaan hadda aan ku jirno marka isla markii TP-gu ku dhacayba dib ayuu soo noqday marka hadda intaan aan ku jirno waxaa quman inaan wax loo yaqaano banaanka ku sugno marka eriyadan aan ku sugaynaa insha allah ama eriyadan haday fay noqotaba waan soo dhigi doonaa intaas ayaa maanta xiisada soo dhaweyn dahabkan dabcan inuu isbuuc fiican inoo noqon doona ayaan rajeynaya oo 200 oo bib almost soo dhicitaankiisu noqon doona almost 200 iyo konton baa ku jirta bib haddii aan 200 ama 150 wadeerkaan ka qabanaba waa good marka asagana dib haddana aan asaybay ugu faa'iidaysan karaynana kaba fiican marka insha allah xiisadani maanta intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa معنا عبد العزيز الأولي إن شاء الله. أستاذ هذا ما سنتعين وحي